رئيسل وزراء حمزة وشir gudoomiye kulanka iskaashiga Soomaaliya ee golaha ammaanka ee nabadda midowga Afrika. Raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ku shir gudoomiyay kulan ku saabsan iskaashiga Soomaaliya iyo midowga Afrika ee ammaanka dalka iyo la dagaalanka argagixisada. Uu la qaatay wakiilo ka socday golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika soo gaaray Muqdisho. Raiisul wasaaraha oo hadal muhiim ah ka jeediyay shirka ayaa ugu mahadceliyay midowga Afrika nafcurnimada ay u sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Raiisul wasaare Xamse ayaa tilmaamay inay Soomaaliya isu diyaarinayso guluf weyn oo ka dhan ah kooxda argagixisada si loo furo wadooyinka muhiimka u ah gargaarka iyo socodka, isagoo dalbaday isu xirnaan iyo wadajir dhinaca howlgalka ah. Sidoo kale waxa uu xusay in dib u habeyn lagu sameynayo maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada. Safiirka Djibouti Addis Ababa Cabdi Maxamed Heybe oo hogaaminayay xubnaha ka socda golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika ayaa sheegay inay la garab taagan yihiin xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed taageero buuxda.